waxaynu ramadaan qabanaa laba shay baa ugu fiican. waxaynu ramadaan qabanaa laba shay baa ugu fiican. mid waa inaynu dembiga iska maydhno, midna waa inaynu darajaadka kor u korno, ajarka aynu shaqaysanayna inaynu badinno, mustaqbalka u dhiganno. dembigii hore inaad iska maydhidoo nadiifisid ramadaan waad awoodi kartaa. inaad ajarka biirisana markaad intaa maydhana waad ziyaada cani dunuub aad shaqaysato na waad awoodi karaysaa. idan camalka intaad soo jeedabaad ajarkiisa weyn leedahay, intaasaa inta dunuubta masaxaysa bay culammadu idhaha. markaa salaadahaagii haddii laysu gegeeyo ay wada dhammayn waayeen oo jimcadaadii marka lagu daro ay haddana wada maydhi kari weyday, ramadaantaadu hadday fiicnaato iyadaa maydhaysa wixii inta hore u taag weyday. walidaalik haddii 11 bilood salaad khalkhala aynu soo tukanaynay ama jimce imaamkoo taagan una aynu soo fuulaynay soo gelaynay masaajidka, aan isku dayno bisha tani inay noqoto bishii aynu tirtiri lahayn wixii camal inaga tegayoo dhan, wixii dunuub inaga dhacday horoo dhan bil aynu tirtiro. oo xadiis saxiixa wuxuu leeyahay kullu camal ibnu aadam yudaacafu lahu alxasana bicashri amhaaliha ilaa 700 ضعف. qaala allahu subxaana ila asawm fainahu lii waana ajzi bih. camal kasta uu qofku samaysto waa la labanlaabayaa 10 jeer ilaa iyo 700 jeer min fadli illaahi subxaanahu wa tacaala. soonka mooyaane baa layidhi, ama soonka isaga anaa iskale baa ilaahay yidhi, isagu waa gaar. isagu markaa culammadu waxay leeyihiin anaa leda idaafada tani waxay macnaynaysaa bay culimmadu leeyihin sirta ah inaanu iyadu ku jirin waxyaabahan uu xadaysan yahay ajarkooda, ee ajarkeeda ilaahay ubaa garanaya. walidaalik baa mufasiriinta qaarkood waxay ku fasiraan aayaddan qur-aanka ee ilaahay leeyahy innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab. shahru sabrina waa la yidhaahdaa, shahru soonna waa la yidhaahdaa. oo dee sabir dhammaantii buu qofku la imanaya, inuu can ilmacaasi wa can ishahwaat ka soomo, inuu cala taacaati ku sabro, iyo wixii mashaakil iyo aalaam iyo maqaadiir soo gaadha inuu ku sabro. haddaba bisha tani waa bil aan rabno laba wax inaan hello. kow, in ilaahay dembigaaga dhaafo. hadda maaha inaynu iyada dembi kororsanno. dadka qaar baa bisha tan musalsalaad iyo balaayo bishii uu dembiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba. ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo, bilaad marna hurudown marna ma aha. waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro. waa qofka muslimka waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaadhsiiyo. muxuu rabaa? wuxuu rabaa in ilaahay dembiga ka maydho. wuxuu rabaa ajar inta ugu badan leh inuu shaqaysto. wuxuu rabaa inuu ku biiro min cutaqaa'ih, kuwa ilaahay naarta ka xoraynaya. habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bisha tan oo dhan. wadaaka fii kulli leyla buu nebigu yidhi, habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya. inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyey, ee inaad dembi kororsato maaha. walidaalik baa caaisha markay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddiiba ilaahay haleeshiiyo aan ku beegmo habeenkaasi laylatulqadriga maxaan idhaahdaa bay ku tidhi. nebigu wuxuu yidhi waxaad tidhaha allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu can. ilaahu dembigayga rogdhe, ilaahu icafi. waxaad ku ducaysataa habeenkaasi ha noqoto buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ilaahu cafi. haddaba ayuha alxiba, warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan diyaargarowgeennu ha noqdo sidii aynu ilaahay ugu noqon lahayn, rabbi ugu xidhmi lahayn, aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn, iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn, janno ilaahay u weydiisan lahayn oo u geli lahayn.
bishatani markaa ha noqoto daal badani waa inuu kaa muuqdaa oo ah fa idaa faragta fansab ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa inaynu ku daallo ee bil kaslaamnimo badan aynaga muuqato laziness bil aynu qaadna maaha bil dadku caajiso waan soomanay qof walba idhaa naftu ka sii baxdo ee waa bil aad u baahantay waa tababar baad galaysaaye 11 biloodoo dambaad u sii sahay qaadanaysaa 11 horena dembigoodaad iska maydhaysaa waa bil aad u sii saha qaadanayso cafaariiddii waaweyneed ee abaalisadii baa lagugu soo dayn doonaa markay dhammaataye si aad isaga celin lahayd haddaad traininka ugu sii jirtaa ibliisaanu dibku ugu duufsan lahayn iyo kooxdiisii idan haddaad bisha lafteedii dayacanto dee waad wada dayacmaysaa si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay man xurima khayruha faqad xurim ama uu aamin u leeyahay jibriil oo leh ninkay ramadaan u soo gasho fansalakh oo ay dhammaato walam yugfar lahu uu leeyahay afka ciidda ha daro nebi maxamedna waa aamiin leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inta gaadha bishatan ee asiibtee ka faa'iidaysata ee ilaahay ugu dhowaata in rabbi inaga yeelo